dhib iyo dhilo dagaal isu soo guur ciidan qoryo iyo luqunjiris ayay ahayd xaaladda gobolka Sanaag maalmihii u dambeysay balse iminka xaaladdu waxaad moodaa inay ka duwan tahay sidii hore ciidamada ururada 93aad iyo 116aad ee Somaliland u fadhiyay gobolka Sanaag bari ayaa badiba ku darsoomay ciidamada Puntland munaasabad soo dhaweyntooda loo qabtay oo ka dhacday deegaanka Balibusle ee gobolka Highland ayaa waxa ka soo qayb galay gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Cabdixakiim Dhooba Daareed wasiirka amniga dowladda Puntland Cabdisamed Gallan xubno ka tirsan golaha iyo xukuumadda Puntland mas'uuliyiin kala duwan qurba joog iyo qaybo ka mid ah uqaasha gobolka Sanaag munaasabadda oo codbaahiyaheeda la isaga kala dambeeyay ayaa waxa ka warbixiyay ciidamada soo wareegay gaashaanla sare Cabdirashiid Axmed Jaamac warkaygu waa dhayahay waxaan ku soo gabagabeynayaa ciidankaygu waa anaga waad garanaysaan wuxuu ahaa ciidankii gobolka Sanaag ka hawlgeli jiray haddii uu ka hawlgeli jiray siyaabaha saraakiisha iyo gudoomiyadu ay sheegayaan baa dhacday oo ay ka mid tahay cadaalad xumo oo ay ka mid tahay kibir ay ka mid yahay oo ay ka mid tahay cadaalad ku roon yahay qorshe xumo markii aanu aragnay inuu yahay maamulkaanu ka tirsanayn mid anaga nagu soo duulay waxaan go'aan ka qaadanay inaan la shaqeyn waxaan leeyahay guul baan inoo rajeynaya dhammaan waxaan leeyahay guul baan inoo rajeynaya guuleysta Cabdijamaal Cismaan Maxamed oo ka mid ah golaha shacabka dowladda Puntland ayaa soo dhaweynta ciidamada tan ka hadlay ilaa saaka qolaha taagnaad baan ugu mahadcelinayaa ciidankii geesiyaasha ah oo hadda hor fadhiya oo saaxiibada ah oo in badan aan soo wada shaqeynay goob badan aan iska hornimi talooyin badan iyo qorshayaal badan dartood aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan sugan nahay anigoo aan xabadana isku ridin laakiin siyaasad ahaan iyo fikir ahaan baan iska soo horjeednay runtii waxa aad farxad noogu ah waan aad iyo aan hadda hadalku waxa laga yaabaa iskaga qaldamo aan runtii aan ka mahadcelin kan Ilaahay awood leh oo aan adoomada u nahay ugu xamdin celineynaa wasiirka amniga dowladda Puntland Cabdisamed Gallan oo maalmihii u dambeeyay ku sugnaa gobolka Sanaag ayaa sheegay in dowladda Puntland ay bixin doonto xuquuqda ciidankan waxaana uu sidoo kale u sameeyay taliyaasha ciidamadan dallacsiin darajo waxay ii tahay maantay maalin aad u farxad badan oo ku soo biirtay taariikhda Puntland waxaynu ka wada warhaynaa Puntland waxa ay dhisan tahay muddo ka badan 20 sano waxa jirtay taariikho adag oo ina soo maray laakiin maanta waxay inay ilowsiinaysaa ama ay ina hilmaansiin kartaa taariikhihii madooba ee Puntland soo maray waxaan rajaynayaa Ilaahay idankii inay tusaale u noqon doonto gobolada kale ee ay Somaliland ku hayso dhibta sida gobolka Sool iyo Cayn in la dallacsiiyay saraakiishii ay ugu horeeyaan taliyihii guutada 93aad ee ciidanka Somaliland gaashaanla dhexe Xuseen Faarax Aadan waxa loo dallacsiiyay gaashaanla sare sidaas la mid ah gaashaanla dhexe Cabdirashiid Axmed Jaamac oo ahaa taliyihii guutada 116aad waxa loo dallacsiiyay gaashaanla sare gaashaanle Jaamac Cabdi Geesood oo ahaa taliyihii ururka koowaad ee Dhahar iyo Soonaheeda waxa loo dallacsiiyay gaashaanla dhexe gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Cabdixakiim Dhooba Daareed ayaa isna madasha gabagabadeedii ka hadlay waxaana uu u ballan qaaday ciidankan inay korjoogteen ku sameyn doonaan helidda xuquuqdooda maalintii la oran jiray ay dhiin May dadku way ilaaween maalintaad soo goosa ka dhawaaqdeen waxay ay 28 May waxaanu u bixinaynaa Blue Day baynu u bixinaynaa maalinta buluuga baynu u bixinaynaa waa maalin laga xusi doono Puntland waa maalin laga xusi doono Sanaag ay dhiin May intii laynagu wareeriyayna 28 May baynu haynaa hadda wixii ka dambeeya waxaana suurtageliya weydinka arrinka labaad waxa laga hadlayay xuquuqda annaguna waan kor joogtayn doonaa waxa weeye waxa mas'uuliyadiinuna waxay saaran tahay waa mas'uuliyiinta Puntland ama xildhibaano ha noqdeen ama xukuumad ha noqdeen ama waxa weeye shacabka Puntland ba ha noqdeen taa iyada waxba ka seexda warwarna ha ka gelin